filinku wuxuu ku bilaabanayaa mustaqbalka dhow dadka adduunka aad bay u bateen oo khayraadkii dabiiciga ahaa waa ay yaraadeen sidaas darteed qaramada midoobay waxay go'aansadeen in dal kasta uu hoos u dhigo tirada dadkiisa 5% sanad walba gudaha Mareykanka ardayda oo dhan waxay sanadkiiba mar ay galaan imtixaan guud kuwa ugu darajada hooseeyana waa la dili doonaa imtixaankaas waxaa la yiraahdaa oo dadka waxay u bixiyeen naanaysta imtixaanka yaraynta dadka gobolka Texas ardaydu waxay si adag ugu diyaar garoowayaan imtixaankaas oo bilaaban doona 18 saacadood gudahooda gawar dhigata dugsiga sare oo la yiraahdo Lina ayaa caawinaysa Simon halka walaalaheeda yaryar ay meel u dhow ay ku ciyaarayaan Simon wuu xanaaqay sababtoo ah ma fahmi karo casharada iskuulka markaas ayuu Lina siinayaa lacag fara badan taas oo u keentay aalad gaar ah misana siinaysa jawaabaha imtixaanka oo dhan Lina waxay xusuusinaysaa in uu burburiyo aalada marka imtixaanka uu soo dhamaado markaas ayay Lina wicitaan ka heshay isbitaalka oo lagu leeyahay hooyadeeda waxay rabtaa inay baxdo iyadoo aan fasax caafimaad aysan haysanin Lina waxay codsatay in la sugo oo si degdeg ah ayay ugu oroday dhinaca iyo isbitaalka iyadoo la socota walaalaheeda markay halkaas tageen hooyadeeda horey ayay u saxiixday warqadihii bixitaanka dhakhtarka ayaa Lina dhinac geeyay lacagteedana waa uu diiday isagoo u sheegaya in hooyadeeda xaaladeedu ay ka sii dartay oo aan daawo kale aysan jirin fiidkii markay 12 saacadood ay ka harsan yihiin waqtiga imtixaanka wiilka gudoomiyaha gobolka oo lagu magacaabo Blake wuxuu u sheegay waardiyihiisa inuu doonayo inuu jikada uu tago balse dab ahaantii wuxuu ka baxsaday guriga si uu ula kulmo saaxiibtiis Eli xaaladda ayaa noqotay mid cakiran markay soo xasuustaan in subaxda xigta midkood inuu dhiman karo sidaas darteed waxay isku dayeen inay iska hilmaamaan waxyaabahaas waxay si qarsoodi ah u galeen guri kale halkaas oo ay barkada dabaasha ay ku raaxaysanayeen kadibna waxay u laabteen gaariga si ay isku macsalaameeyaan balse Eli ma awoodo midaas sababtoo ah waxay ka cabsi qabtaa imtixaanka waardiye ayaa si lama filaan ah u yimid Blake-na dib ayuu ugu celiyay Eli gurigeedii gudoomiyaha oo lagu magacaabo Dan wuxuu canaantay wiilkiisa Blake sababtoo ah waqtigiisa ayuu khasaarinayaa habeenka ka horeeya imtixaanka wuxuu ku yiri waa inaad hadda barato si aad mustaqbalka u raaxaysato wuxuu kaloo u sheegay in Eli ay tahay waqti lumis oo uusan awoodin ilaa uu ka qalin jabinayo inuu sii sugo balse Blake ma rumaysna hadalkaas si kastaba aabihiisa wuu soo dhaweystay oo wuu dhunkaday 3 saacadood ka hor imtixaanka ciidamo madow ayaa hareeraha iskuulka ka dhisaya xayndaabyo adag silig bir ah iyo kaamerooyin fara badan waxay sidoo kale ku dul socdeen aaga si aysan cidna uga baxsan halkaas Simon wuxuu yimid goor hore balse arday kale ayaa si lama filaan ah ugu dul dhacay taas oo sababtay in aaladiisa ay dhulka ku dhacaan wuxuu isku dayay inuu helo balse waardiyaha ayaa ku yiri sii soco halkan iskaga tag markay ardaydu soo wada gaareen xarunta imtixaanka waxay macsalaameeyeen waalidkooda waliba si murugo leh kadibna waardiyaasha ayaa baaraya boorsooyinkooda oo jirkooda xitaa baaraya si looga hortago khiyaano inay sameeyaan Blake wuxuu u yimid Lina si uu uga iibsado aaladii ay haysay camal balse Lina waxay u sheegtay inay mar hore iibisay kuwii ugu dambeeyay markaas waardiye ayaa qabtay arday oo gacantiisa ku soo qoray jawaabo qarsoon wiilkuna wuu orday waa markii ugu horeysay oo arday uu baxsado sidaas darteed saaxiibkii Lina ee Kellen wuxuu isticmaalay akoonkii aabihiisa si uu u helo muuqaalka amniga ee wadada wuxuuna arkay waardiyaasha oo ku tuuraya shabaq ay ku qabteen wiilkii baxsaday kadibna Kellen wuxuu koobi gareystay muuqaalkaas wuxuuna u diray wariye caan ah markay ardaydu gudaha u galaan iskuulka oo dhan waa la xiray arday kasta wuxuu tagay fasalkiisa macalimad Baakis ayaa isku dayaysa inay dhiirigeliso ardayda iyadoo leh mar walba fursad kale baa jirta macallin Galaas wuxuu xusuusinayaa xeerarkan soo socda waxay haystaan 2 saacadood oo ay ku dhamaystiraan imtixaanka oo dhan indhahoodu ma aha inay ka leexiyaan tabletka dhammaan natiijooyinku waa kuwa isku jaangoon markaas ayaa imtixaankii ugu dambeyn uu bilaabmay ardayduna waxay diiradda saareen jawaabaha ku qornaa tabletkooda laakiin si cad ayaa loo arkay in kuwa badan ay la daala dhacayaan rafaad imtixaankaas markii imtixaanka la dhameeyay ardayda waxaa lagu amray inay tabletkooda ay dhigaan waardiyaashuna isla markiiba waxay galeen kombiyuutaradooda si ay u eegaan natiijooyinka dhowr daqiiqo gudahood ayaa la helay natiijada oo dhan macallimiintuna way murugoodeen markay arkeen liiska ardayda ugu darajada hooseeyay magac kasta oo la akhriyo waardiyaasha ayaa ardaygaas qabanaya oo meel fog ayay u jiidayaan kuwa isku daya inay baxsadaana waa la garaacaya Blake Kellen iyo Lina way baaseen balse Eli waa ay ku guuldareysatay banaanka ayaana loo saaray ardaydii kale waxaa loo ogolaaday inay nasasho yar inay qaataan Linana waxay aragtay in Simon isna banaanka loo saaray Blake oo niyad jabsan ayaa wacaya aabihiisa si uu uga codsado inuu badbaadiyo saaxiibtiisa Eli balse aabihii uu ka diiday isagoo leh sharcigu qof walba waa uu siman yahay Blake aad ayuu u xanaaqay wuxuuna dadka si xoog ah uga riixayaa si uu u gaaro waardiyaha kadibna wuxuu qabsaday dabdamiyihii wuxuuna ku dhuftay waardiyihii meesha joogay markaas ayuu ku booday waardiyaha labaad isagoo la dagaalamaya isla markaana u qaylinaya Eli si ay u baxsato Eli isla markiiba way oroday balse ardaydii kale ayaa ka xanibaya jidka waardiyaashiina waa ay qabteen oo waxay geeyeen meel ardayda lagu dilo halka Blake oo qaylinaya la sii jiidaayo sanad ayaa ka soo wareegatay dhacdadaas imtixaankii xigayna wuxuu bilaaban doonaa 24 saacadood gudahooda arday la yiraahdo Sara uma adkaysan karto waxbarashada waxayna u tagtay macallin Galaas kaasoo u ballan qaaday inuu siin doono darajo fiican haddii ay u samayso wax laaluush ah dhanka kale Bridge waxay booqatay Lina iyo walaalaheeda yaryar kuwaasoo dhawaan hooyadooda ay geeriyootay Bridge waxay u keentay cunto waxayna tustay inay taageero u tahay sababtoo ah waxay og tahay in carruurtan sanadkan ay markii ugu horeysay imtixaan ay geli doonaan markay gurigeeda ku sii laabanaysay waxay aragtay Sara oo ka soo degaysa gaariga macallin Galaas guriga gudoomiyaha dhexdiisa Blake wuxuu duubayaa muuqaalkii
isaga oo leh haddii qof uu daawanayo muuqaalkan micnaheedu waa inaan dhintay 3 saacadood ka hor imtixaanka liina waxay walaalaheeda u qaaday iskuulka iyadoo si degdeg ah u weydiinaysa su'aalo si ay u hubiso inay diyaar yihiin iyo in kale deen wuxuu isku dayay inuu dhiirigeliyo wiilkiisa Blake balse Blake ma rumaysna hadalladiisa wuxuuna ku yiri hadalladaas ku kaydso buugaagtaada uma baahni hadalkaaga waardiye ayaa arkaya Blake oo baqshad sii dhigaya sanduuqa boostada markuu u sii socdo iskuulka sidaas darteed waa uu soo qaatay wuxuuna u geeyay aabaha Blake daqiiqada kadib iskuulka waa la xiray ardayduna waxay fadhiisteen kuraastooda fasalka caruurta yaryar macallimadu waxay daawanaysaa muuqaalo wacyigelin ah oo sheegaya sababta imtixaanku uu muhiim ugu yahay badbaadinta dhulka ay ku nool yihiin dalalka kale waxay dilaan dadka waaweyn ama waxay xadidaan dhalashada caruurta laakiin Mareykanku wuxuu diiradda saarayaa in la ilaaliyo dadka caqliga badan si uu mar kale u noqdo dal aad u weyn kadib ardayda waxaa la siiyay tabletyadii imtixaankii cusbaana waa uu bilaabmay dhanka kale deen wuxuu furay baqshadii Blake oo wuxuu ka helay muuqaalkii wiilkiisa uu duubay kaasoo sheegaya inuu si ula kac ah u guuldaraysan doono si aabihiisa uu arko wiilkiisa oo dhimanaya inay tahay sababta nidaamkan uu difaacayo deen isla markiiba wuxuu amray waardiyaashiisa inay Blake soo qabtaan balse qofna kama bixi karo maadaama iskuulka oo dhan la xiray deen wuxuu u diray waardiyihiisa inuu baxo kadibna wuxuu wacay Mason oo ah madaxa amniga iskuulka fasalka Blake wuxuu si degdeg ah u buuxiyay su'aalaha waana si khaldan oo ula kac ah taasoo sababaysa inuu si dhaqso ah u dhameeyo imtixaanka macallin Galaas wuxuu dareemay in arrintu ay tahay mid isku qasan fasalka caruurta yaryar ilmo ayaa gacanta taagaya si uu u codsado caawimaad balse macallimadu ma caawin karto sababtoo ah waardiye ayaa daawanaya oo ujeeda wax walba ay sameynayaan markii waqtigu uu dhamaado ardaydii waxay dhigeen tabletyadii marka natiijooyinka waxaa kaliya xisaabinaya Mason halkii ay ahaan lahaayeen koox waardiye ah macallimiintu waxay bilaabeen inay akhriyaan magacyada ilmaha codsaday caawimaadana banaanka ayaa loo qaaday sidoo kale Sara waa la qaaday iyadoo qaylinaysa markay garato in macallin Galaas uu been u sheegay Kellen iyo Liina walaalaheeda way gudbeen Blake-na wuu gudbay balse isagu ma uusan fahmin sababta Bridge way ooyday markay akhrido magaca Liina mana rumaysan karto sababtoo ah Liina waa ardayda ugu fiican fasalka dhanka kale Mason wuxuu wacayaa Deen si uu u xaqiijiyo in isbedel uu sameeyay oo wiilkiisa uu badbaadiyay Liina oo weli ku jirta marinka hawada waxay sugtay ilaa waardiyaasha ay ka dhaqaaqaan markaas ayay hoos u dhigtay bilabkeeda waxayna ku guuleysatay inay soo jiido kaarkii markay kor u sii qaadaysay waardiye ayaa si lama filaan ah u qabtay laakiin markuu sii daayo Liina waxay garatay inuu yahay Blake kaasoo xirtay dharkii waardiyaha ee uu hore u soo garaacay inta ay ciidamada amniga dagaalkii hore ka sheekaynayeen mid ka mid ah waardiyaasha ayaa u sheegay Simon in laba dhalinyaro ah ay baxsadeen midna uu isticmaalay magaca Bridge qolka kale dhexdiisa macallimiintii weli waxa ay sugayeen amar Bridge waxay iska dhigaysaa inay la kaftamayso macallin Galaas waxayna si qarsoodi ah uga xadaysaa kaarka furaha markuu Mason uu yimid si uu u hubiyo Bridge waxay u dhiibtay kaarka Galaas iyada oo iska dhigaysa inay iyada leedahay markaas waardiyaashu waxay ogaadeen in Galaas uu ka maqan yahay kaarkiisii sidaas darteed waa la xiray halka macallimiintii kalena la sii daayay Mason wuxuu bilaabay inuu garaaco Galaas isagoo weydiinaya halka ay joogaan labadii dhalinyaro ee baxsatay dhanka kale ee Liina waxay maraysaa dhuumaha hawada ilaa ay ka gaarto qolka systemka waxayna isku dayday inay isticmaasho kombiyuutarka balse barnaamijku wuxuu weydiinayaa erey sir ah oo Mason uu leeyahay waxay fariin u dirtay Kellen si uu uga caawiyo arrintan xilligaas aabaha Kellen ayaa dhamaystiraya dayactirkii uu ku sameynayay korontada iskuulka waxaana soo laabanaysa tamartii korontada Kellen wuxuu dib u helay internet wuxuuna arkay fariinta Liina markaasuu u diray muuqaal uu hore u duubay Mason oo isticmaalaya ereygii sirta u ahaa Liina waxay koobi garaysay muuqaalkaas si ay u gasho nidaamka imtixaanka marka hore waxay hubisay natiijooyinka walaalaheeda si ay u xaqiijiso inay gudbeen markaas kadibna waxay eegtay natiijadeeda waxayna aragtay inay heshay 98% laakiin haddana waxaa lagu sheegay inay ku dhacday halka Blake uu ku baasay 15% isla xaalkaas ayna ku dhacay Eli oo heshay 88% balse lagu sheegay inay ku dhacday imtixaanka waxaana cadaatay in Deen uu muddo uu beeninayay natiijooyinka imtixaanka isla waqtigaas Deen wuxuu ka soo muuqday shir jaraa'id wuxuuna sheegay in Liina ay dishay laba waardiye kadib markii ay ku dhacday imtixaanka balse ciidamada amnigu ay si adag u ilaalinayaan dadka kale si aysan dhibaato ugu geysan dhanka kale Kellen wuxuu u diray saaxiibtiisii wariyaha ahayd muuqaalkii waardiyaasha oo ardayda garaacay waxaana si degdeg ah looga sii daayay telefishinka qaranka Liina waxay garanaysaa in tani ay tahay shaqadii Kellen markaasay u dirtay sawiro muujinaya natiijooyinka laga been abuurtay nasiib darro Mason wuxuu ku arkay kaamirooyinka ammaanka markaasuu kiciyay alarmiga sidaas darteed Liina way oroday Mason iyo waardiyaashiisu si degdeg ah ayay u hareereeyeen Liina inkastoo ay isku dayday inay sheegto inay caddayn u hayso inay dhab ahaantii ay ka gudubtay imtixaanka haddana waa la qabtay dhanka kale Blake wuxuu helay qolka ay ku jiraan ardayda kale wuxuuna iska dhigay in loo diray in meelo kale uu geeyo laakiin waardiyaashu way shakiyeen sababtoo ah cidna kama aysan helin amar sidaas sheegaya markaas Blake wuxuu khasban yahay in dagaal uu bilaabo wuxuu ku guuleystay inuu dhowr waardiye uu ka guuleysto laakiin ugu dambeyn waa la qabtay oo waa la garaacay xafladii Kellen wuxuu helay sawiradii Liina u dirtay wuxuuna u diray wariyaha kaas oo isla markiiba si toos ah uga soo hadlay TV-ga wariyuhu wuxuu sheegay in ay tahay arrin shaki leh in wiilka siyaasiga uu faa'iido gaar ah uu helay waxaana hoyga Deen ka bilaabmay jahawareer iyo qalalaase qaar ka mid ah kooxdiisu waxay kula talinayeen in mashruucan la joojiyo oo Liina la sii daayo balse Deen wuxuu u sheegay inuu qorshe kale uu hayo ugu dambeyntii Liina iyo ardaydii ku dhacday imtixaanka waa la xiray waxaana waardiyaasha
waardiyaashu ay diyaarinayeen irbado qarsoodi ah. Mason wuxuu wacay Dane si uu ogolaansho uga helo, laakiin Dane wuxuu leeyahay liiska waa in dib loo hubiyaa. Ardayda dhab ahaantii imtixaanka ku baasay waa la sii daayay. Liinana waxay u oroday si ay u farxad geliso Blake oo weli gacmaha ka xiran, laakiin waardiyaasha ayaa si xoog ah u kala qabtay. Isla markiiba waardiyaashu waxay aadeen xafladda si ay u soo qabtaan ardayda dhab ahaantii ku dhacday imtixaanka oo uu ku jirto Blake. Mid ardaydu waxay heleen irbado qarsoodi ah kadibna way miyir beeleen. Dugsigii ayaa markaas dib loo furay, waalidiintuna waxay la midoobeen carruurtooda. Liina waxay u oroday inay la kulanto walaalaheeda oo macalinka uu ilaalinayay. Waalidiinta aan helin carruurtooda halkaas ayay ku ooyeen oo waa ay niyad jabeen. Dane mar kale ayuu TV-ga ka soo muuqday, wuxuuna iska dhigay in Mason uu mas'uul ka ahaa dhammaan khaladaadkii dhacay, isagoo muujinaya wejiyo murugo leh oo sheegaya inuu ka xun yahay geerida wiilkiisa, balse wuxuu weli cadeynayaa in xitaa isaga uusan ka saraynin sharciga. Dhowr toddobaad kadib, gaari weyn ayaa tagaya warshad qarsoodi ah. Blake wuxuu si lama filaan ah ugu toosay isagoo nool, sababtoo ah irbadii la siiyey waxay ahayd mid hurdo ah oo keliya. Ardaydii kale oo dhanna waa ay nool yihiin, waxayna ogaadeen in ardaydii sanadihii hore ku dhacday imtixaanka ay halkaas ka shaqaynayeen. Blakena wuxuu la yaabay markuu arkay Ellie inay weli nooshahay, halkaas ayuuna filimku ku dhammaaday.